يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه والامتنان على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaallayaal waxaynu maraynaa jimcihii u horreeyey bisha Ramadaan. ilaahay baynu baryaynaa siduu inoo gaadhsiiyey inuu inoogu dhammaystiro inagana aqbalo. waxaynu baraarujinaynaa dhowr arrimood. arrinta u horeysaa waxa weeye inaynu dareenno inaan ka dulboodin nicmooyinka alla uu inoogu deeqee faraha badan ee dad badani aanu haysanin. nicmada koowaad waa ta islaamnimada. ha yaraysanin. waa awla nicam wa akbaruhaa wa kubraaha. nicmooyinka ta u weyn waa diintiiyo islaamnimada. adduunkan aynu ku nool lahay intiisa faraha badani sida la ogsoon yahay 3/4 wax gaadhaya 4 meelood oo 3 baan ilaahayba rumaysnay inuu ka gaaloobay subxaanahu wa tacaala. marka inuu kugu daray rubuca rabbi rumaysan wax aad u qaaliya weeye. in fara badanna qur-aanka kariimka ah ilaahay wuu inoogu mana sheegtaa nicmada iyada. alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wa bi'sa alqaraar. nicmadii ilaahay ballaya kuwa ku bedelay gaalnimo ayay nicmadii ilaahay ku dooriyeen. gaalnimona way bedel qaateen, nicmadii islaamnimadana way ka tegeen. reerahoodiina intay kaxeeyeen bay naar dhex fureen, ay dhex dejiyeen. wax lala yaabo wey. nicmada aynu haysanaa walaalay waxa way nicmatulhidaaya. dad badan oo muslimiin sheeganaya ayaa haddaan caasiya oo rabadaantaa soo gashay waxay isku dayayaan sida xun inay uga faa'idaystaan. waxba laga yaabaa inuu qofku ka fikiro xaaraantay dadku ka xidhan yihiin sidee adigu lacag uga samaysaa. idan markaa nicmatulhidaaya wax sahlan baa inuu ilaahay ku hanuuniyo tubta toosan kugu hagaajiyo fursadaha daacada uu ku waafajiyaa wax qaaliya wey. waxaa ka mid a nicmooyinka ay tahay inaynu ku baraarugno inuu ina soo gaadhsiiyo Ramadaan. waxaynu ogsoonnay dad badan oo walaalaheen ahaa oo kal hore inala soomay oo inala ciiday. bal ehelka asxaabta ummaddaa taqaanay dib u raajac, cajaladaada dib u celi. intee adduunka ka tegay oo maanta kitaabkoodii la laabay oo aan wax khayrahoo loo qorayaa jirin, oo jeclaysan lahaa maanta in iifka joogi lahaayeen camalkaa oo kale wadi lahaayeen. idan markaa nicmo weyn weeye. waxaaba laga yaabaa inaad leylatulqadriga aad ku beeganto cimrigaagu dhowr iyo 80 sano hore u kaco oo fursadda dhinaca fiican aad uga faa'iidaysato. idan markaa taasina ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala. nicmooyinkaan la yaraysan karin waxaa ka mid ah nicmada caafimaadka. cuudka iyo xooluhu ina siiyey, caruurtuu inoogu deeqay, nabadgelyadu ina siiyey, iyo jamacoo inoo oogan. caalamulislaami waa laga yaabaa ama adduunyadaba inta jumcaha aynu joogno masjid camiraysa ku tukanaysa inay naadirta ay yar tahay. xarameynkii baa xidhan ood arkaysa. marka waxay dadkii ka cabanayaan inay sijaadadii isku haystaan iyagii iyo ciyaalkii iyo dumarkii. in sacuudiga igala soo hadlaya wuxuu ihi nicmada ilaahay ugu mahadnaq. sijaadadii baan isku haystanaa ciyaalka, waa sijaadadaydi, waa taydi. oo runtii la isku daalay sidii xabsi loogu jiray oo rag iyo dumarkii iskaraahaysteen sidii guriga la isu horfadhiyay. marka min nicam illaah ayay ka mid tahay. ilaahayna waxaynu baryaynaa oo aynu khalaawada u galaynaa waxa dadka guryaha ku xareeyay inaanu inagayna soo marayninba. ilaahay saasaynu baryaynaa oo aynu ku ducaysanaynaa subxaanahu wa tacaala. markaynu nicmadooyinkaa ka soo gudbno walaalayaal, waxay nala gudban ikhlaasu niya wa sidqu tawajuh ila allahi subxaana. niyadeenna inaynu wanaajinno. ilaahay baynu marti u nahay
inuu inaga dhigo kuwa mudan oo u maamuuso oo aynu qalbigeena si fiican ilaahay ugu soo jeedin oo aynu samaysano khabi'atan min alcamal camallo inaga iyo ilaahay naga dhexeeya oo aanu istusnimo iyo ismaqashin midna ku jirin oo ayaamaha inagu adkaato arrintu aynu ilaahay ugu tawasulno subxaanahu wa tacaala arrintaa had iyo jeer camalka qiimaha u yeeshaana waxa weeye niyad samaanta iyo daacadnimada iyo ikhlaaska innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin camalka aqbalkiisa iyo ijaabadiisuna waa arrinka ay ku xidhan yihiin waxaa laga maarmaana walaalayaal inaynaan noqonin janno kabood iyadoo jannadu afka kuusoo kala hayso kuba diyaarsan haddaad ka dulboodo musiibo weyn weeye nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddu waaniyo waxau ihi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummaddani jannadu way wada diyaarsantay mid iska diida mooyaane kaadhkeeda mid waliba u qaadan karaa jannada laakiin ka iska diidaa dee u weydaaran man adaacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa qofka aniga adeeca jannada wuu gelayaa kii caasiyaana wuu ka booday nebigu saasuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam marka furaha jannada miftaaxeeda lasii qaadanaya waxa wey in ilaahay la caabudo oo la adeeco subxaana wa tacaala arrinta afraad aynu baraarujin lahayn waxa weeye laabudda an nakuuna daakiriina laa ghaafiliin waa inaynu noqonno kuwo qalbigu u safaysan yahay oo aanu ka qallafin oo aanu ka qomboobin oo ilaahay xuso subxaana wa tacaala oo aan ka dhacsanayn dikriga ilaahay iyo xuskiisa inaad ilaahay xusaysaa wax weyn weeye waa fadli weyn oo ilaahay uu bixiyo subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan waasiila waqaala ayضa wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajra cadiima aayadaha qur-aanka ee dikriga faraya aad bay u badan yihin waxaynu ku dayanaynaa rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay leedahay kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani xaalad waluu nebigu ku sugan yahayba carabkiisu dikriguu ka qoyanaa man axabba shay-an akthara min dikri qofku hadduu shay jeclaado ama cid jeclaado sheegsheegeedu badiyaa inaad ilaahay xusaysaa waxay sheegaysaa inuu qalbigaaga ku wenya oo aanu ka maqnayn oo aada jeceshahay bay sheegaysaa intaasina waa darajo la gaadho qaali ah marka xataa hadduu jinaabo leeyahay haddaanu daahir ahayn iyo rasuulku dikriga ilaahay marnaba ma weydaaranayin bay leedahay caaisha wuxuu tilmaamay dadku inay tartanka ugu badan ay cid kaga dheereeyaan inuu yahay xuska sabaqa almufariduun qaaluu wama almufariduuna yaa rasuula allah qaala addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat dadka rag iyo dumarba ilaahay xusaya dadba way ka dheereeyeen la kala dheeree si orod ma aha cagaha laguma ordin laakiin carabkaa lagu orday iyo camal baa lagu orday markaa dadka ilaahay xusaya cid walba way ka dheereeyeen buu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam marka xayaatadani iyo noloshani hadday dikrigaa weydo waxay noqon doontaa miduu qofku ka murugoodo maalinta qiyaamaha yaa laytanii qadamtu lixayaati guuldaradayde bal intaan noolaa maan wax wanaagsan qadima buu leeyahy waxaynu ku dadaalaynaa akbaru dikrin wa axsanu dikriga ka u wanaagsan ee u qiimaha badan oo qur-aanka ilaahay ah inuu qowlkeenu u badan yahay anu qur-aanka aada u akhriyayna habeenkiiyo maalintaba qofku ilaahay xaafid ka dhiga waa fadli ilaahay qofka qur-aanka akhriyi karaa waa fadli ilaahay kii kalena intuu ka yaqaanaa unbu akhri doonaa inuu bartana uu isku day nicmo aan laga qadi karin weeye oon mudnayn qalbigaaga iyo qowlkaaga inay ka maqnaato qur-aanku marka jadwal baad samaysanaysaa aada ku howlgasho intee baad qur-aanka akhriyaysaa intee jeer baad dhammaynaysaa 5 salaadood haddaad midba jus dabageliso dee 6 jeer baad dhammaynaysaa 5 jeer baad dhammaynaysaa maalintii bishii ramadaanna 6 jeer baad dhammaynaysa idan waxa weeyaan waxaad iyo aada u qaaliya bisha ramadaan yaan odhanayna tirada qur-aanka markaad dhammayso 5tii salaadoodba mar 6dii cishaa mar baad dhammaynaysa markaa intaasoo jeer baad fursad u helaysaa inaad bishii ramadaan aada dhammayso qur-aankii kariimka ahaa waana wax qaaliyo intaad wax kale ku jiri lahayd qowlka ilaahay inaad ka agdhawaatood rabbi la faqdood la sheekaysato wax qaaliya wey waxaanaad ku bushaaraysanaysaa xadiidku nebigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam saxiixa ahaa qofka xaraf akhriya 10 ajri buu leeyahy buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa hal xaraf 10 ajri baad ku leedahay qur-aanku waa intee oo xaraf 300 iyo siyaadada 1000 xaraf uu yahay baa 10 lagugu dhufanaya horay baad ka dharagtay baa akoonkaagiiba waa buuxsamay waxaynu baraarujin lahaynoo 6aad shahru ramadaan fursa lidacwati ila allah inaynu ilaahay dadka xaggiisa ugu yeedhno
shaydaanka iyo dadka sharka wadaa waxay isku dayeen inay ilaahay ka duwaan dadka oo ilaahay iyo dadka kala dhex galaan markaa bisha ramadaan qalbiyadii way soo jeedaan dadka qalbigoodii waa qoyan yahay markaa inaynu dacwadda uga faa'iidayno fariinta aada isku daydo inaad qaybtaada gaadhsiiso ehelka asxaabta jaarka dadka isku shaqada tihiin haddaad tahay qof farsamadan yaqaano wax lagu baahiyana waxaad gaadhsiin doontaa dadka bishaa dhexdeeda wixii khayr leh nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu dhaartay baa wuxuu leeyahy fawallaahi laa yahdi allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumuri nicam geela cascas waxa kaaga fiican inuu qof qura ilaahay sababtaada ku soo hanuuniyo waa qof keliya miisaanka xasanaadkaa lagu saaraya ee ajrigii aad ka heshay maalintaa ka ah waxaynu baraarujin lahayn oo toddobaad meesha ugu mudan inaad wax ka hagaajiso oo aad wax ka toosiso waa gurigaaga dad badan baa guryaha ku xidhan oo yidhi jumcadii halkaasaanu ku tukanaynaayo jamicii halkaa la soo fadhiyo oo dani ay isbaday dadkii ay mas-uulka ka ahaayeen marka muddadan bisha ramadaan lagu jiro waa inaad isku daydaa wakhti aada u badan inaad uga faa'iidayso ehelkaaga iyo ubadkaaga iyo ummadda guriga kula joogta inaad ilaahay xaggiisa u jeediso subxaana wa tacaala waa mas-uuliyadaha ilaahay uuna weydiin doono maalinta qiyaamaha runtii qofkii ku fashilmaa guuldarro badan ay ku dhacayso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara naar ka badbaadiya naftiina iyo ehelkiina marka halkaad musalsalaad iyo waxun ay daawadaan iyo sheeko bilaa macnaah iyo macaasi aada hormuud ugu noqon lahayd khayrka hormuud ugu noqo oo waa inay kuu noqotaa fursadaad hore u weydayoo ehelka iyo ubadka ay isku la-aydeenoo maanta aada u heshay idan markaa waa inaad fursaddaa ka faa'iidaysataa ciddii aad ku soo xidhi karta iyo cajaladahaad siin karta iyo casharaday daawan karaan inaad ka dhargisa isku day waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga far baa ilahay uli salaad adiguna ku adkow oo ku dadaalo ku sabir idan arrimaha dhowrkaa baynu baraarujin lahay si aynu bishan ugu ayno oo qofkii aan uga muruwanin maalinta qiyaamaha fursaddii uu dayacay dheerayn mayno khudbadda kolley maadaamaynu nicmadaa ilaahay helay waxa mudan inaynu inaguna masaajidada kolle xoogaa culays ka fududayno oo hurdadii la seexan jiray masaajidkana xoogaa laga daayo aada iyo aad bay ayay u habboontahay taasina maadaamay jumcihii iyo jamcii helay اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافنا من الأمراض والأوبئة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم